السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مeel kas dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo musalsaladani taariikhiga kooxaha kubadda cagta ciyaartooyga iyo dhacdooyinkii caansanaa ee kubadda cagtu aan la ilaabin gaar ahaan ciyaaraha kubadda cagta ma xasuusataa kulankii hadda ka hor dhexmaray Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Barcelona Champions League sanadii 2011 bay ahayd oo haddaba ninka gaaban Lionel Messi ayaa ka sheekeynaya kulanka uu wahaa kii ugu fiicnaa ee noloshiisa uu soo ciyaaro kulanka aanan iloobin noloshiisa wuxuu Lionel Messi toddobaadku wuxuu Lionel Messi cadeeyayba waxaan ka sheekeynay wax weeyaan taariikho hore iyo dhacdooyin hore kulamo hore baan ku xasuusanaa barnaamijka kane haddaba Lionel Messi baa ka soo qaadanaya in kulankiisi abid ugu fiicnaa uu wahaa kii 2011 uu la ciyaaray Champions League kooxda Real Madrid haddaba kulanka maxaa dhacay wax badan oo aan ka ogeyn baan ku sheegayaa Lionel Messi baana ku mutay sanad ciyaareedkaas iyo sanadidii xigayba in abaalmarino waaweyn uu ku shaqaysto wax badan ayaan kaaga hayaa 2011 iyo 2012 ciyaarihii Champions League waa 2010 iyo 2011 warada saaxiib channel ku cusbaan hoos subscribe garay si aad u hesho xogaha taariikheed ee kubadda cagta iyo waxyaabaha faniga ee kubadda cagtu ka dhaca oo lagu daray entertainment-gii guud ahaan Lionel Messi waa ninka gaaban ee haddana mar kale sanadkan doonaya inuu ku guuleysto jaayisada Ballon d'Or inkastoo xitaa Cristiano Ronaldo uu doonayo waliba liiskan waxa ku jira ninka la yiraahdo Van Dijk waxaanu doonayaa Van Dijk inuu noqdo difaaci ugu horeeyay ee taariikhda abaalmarinta la siiyay tan iyo Fabio Cannavaro oo nin Italian ah oo abaalmarinta ku guuleystay sanadii 2006 markuu ku guuleystay koobka adduunka Messi wuxuu doonayaa markii lixaad in abaalmarinta loogu cimaamado uu doonayo odaga markii lixaad buu doonayo odaga in la siiyo Ronaldo qudhiis isagu sida uu doonayo inkastoo war ay soo baxay ay sheegayaan in ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo la siin karo sababtoo ah waxa la leeyahay qoli abaalmarinta bixinayba waxay joogaan maalin way tageen Italy bay tageen oo ay Ronaldo la kulmeen oo ay la shaaxeen oo ay mataqaan la sheekaysteen Ballon d'Or goormay la bixinayaa December tafooda nagu soo haystaa la bixinayaa 2 December baa la bixinaya isbuuciyun baa ka haray in la bixiyo jaayisada caankii Ballon d'Or waxa lagu dhawaaqi doonaa ninka adduunka ugu fiican baa lagu dhawaaqi doonaayo maraan dheereen ba abaalmarinta la bixi doonaa marka hadda waxa sii socda shaki badan baa jira saxaafadda Italy waxay ku leeyihiin marba hadii qoli abaalmarinta Faransa football abaalmarintan bixinayba Ronaldo ay la kulmeen oo ay la shaaxeen oo ay la sheekaysteen ya waxay ka dhigantay isaga lagu cumadaya Ballon d'Or bay leeyihiin shakil aan bilin isaga baa la siinaya wallow dadku qarna ay leeyihiin Messi baa la siin karaa sababtoo ah saddexdii san u dambeeyay ciyaartooygu ku soo guuleystay abaalmarinta the best ee xidiga ugu fiican FIFA ayaa ku guuleysan jiray jaayisada Ballon d'Or waxay soo dhacday 2 sano Ronaldo qaaday iyo sanadkii Modric waan arki doonaa hadii sanadka Messi lagu cumaamadi doono dadka qaarna waxay leeyihiin Van Dijk baa loo cumaamadayaayo isaga waxa xaq u leeyahay sanadka la siiyo maadaama ku soo guuleystay tartanka Champions League Van Dijk abaalmarinta the best lagu qaadayo la xoogay haddana ma tan la xoogaa odayaal u dhexda u galay abaalmarinta waxa la doonay dad saameyn in la siiyo moogtahay sanad dhaweed baa Modric la siiyay abaalmarinta saameyn waa yeelo isbaa liri FIFA the best sanadkan waxa la siiyay Messi baa la siiyay waxay yiraahdeen Van Dijk kuma soo karnay qayb ya sanadka hore abaalmarinta wax sheega ma jirin baa liri saameyn qof saameyn la dad siiso abaalmarinta waa la sheegaya Messi baa la siiyay waa kala sheegayo hadda wuxuu doonaya kuwa Ballon d'Or kuna in kasto ay rabaan iyagana in abaalmarintu saameyn ay yeelato kol waxay noqon doontaa adduunka laba nin ay yeelato oo laba nin adduunka ugu fiican la arka sanad gudihii maadaama FIFA u dooratay Messi kuwan hadii aan ahayn Messi u doortaan waxay noqon doontaa adduunka laba nin ka taliso haddaba ninka gaaban ee Lionel Messi ayaa ka sheekeynaya waqtigiisii ugu fiicnaa ee kubadda cagtu soo ciyaaray waa magic waa saaxir waa kabiir waxa uu yahay ninka kulamada cajiibka bandhigyada cajiibka ka sameeya haddaba Messi oo la weydiiyay mid kamid ah kulamadiisa ugu fiicnaa inuu noo sheego Lionel Messi ayaa sheegay kulankiisa ugu fiicnaa inuu ahaa kii Champions League sanadii 2011 kaas oo ahaa semi-final ay ku kulmeen kooxaha Barca iyo Real Madrid Mourinho baa kuwa ka watay kuwana Guardiola baa watayo meesha ciyaar baa ka dhacday waxana lagu ciyaaray Stadio Bernabeu kulku meesha ka sheekeynay marka waa kii 2011 sanadkii Champions League ay Barca qaaday waliba semi-finalka ay ku kulmeen Real Madrid 2011 Bernabeu inta lagu kulmay maxaa dhacay lugta kuwaad semi-finalka waxay ahayd ciyaar dhaaftay oo ku ciyaar maskaxeed bay ahayd laba tababar weyn ay wateen laba koox oo wada laacibin baa halka wada maalinta wada ciyaarayo Barcelona ayaana guul yaab leh ku soo gaartay halka uu 2 gool iyo ever Guardiola ayaana Barcelona waqtiga tababar u ahaa waxaana ay kooxda kubadda cagta Barca haysatay ciyaartooy waaweyn sida Xavi, David Villa, Puyol oo lagu daray Messi iyo rag kale waaweyn
haddii aanu eegno dhanka Madridna ma xumaan iyaguna ciyaartoy waaweyn bay wateen laakiin Barca sanadkaas waxa loo arkay inay ahayd kooxdii ugu awooda badneed ama tiimkii ugu awooda badnaa abid baa loo arkay xilliga kaayo Barcelona ugu awooda badneed abid baa loo arkay xilliga balse Madrid iyanu kama xumayn xilliga kaayo rag culus bay haysteen Ronaldo, Casillas, Alonso, Ramos iyo kuwa kale bay wateen waxaana kulanka uu ahaa mid yacni joogta iyo dagaalka iyo ciyaar maskaxeed weyn la isugu ciyaaray waad ogtahay Mourinho halka jooga dagaalku waa badan yahay yaa Barcelona waa ka habeen bay ahayd balse Real Madrid oo wax badan dadaashay ba waxa boobsiisay mar dambe ciyaarta dhamaadkeeda loo socdo oo Bernabeu lagu ciyaaray ninka gaaban ee Messi daqiiqadii 76 ayuu Messi shabaqa ugu shubay goal fantastic aha oo ka yimaaday geeska intaas uguma ekeen Messi iyo kooxda Real Madrid daqiiqadii 87 waxa uu wada maray 4 difaac oo Real Madrid ah ilaa uu shabaqu kaga hubsado oo kasidas kubadda la hortagay waxa uu Messi kulkaas ku tilmaamay inuu ahaa kiisi ugu fiicnaa noloshiisa kiisi ugu xasuusta badnaa noloshiisa kulankii ugu fiicnaa uu taariikhdiisa ciyaar ku tilmaamayaayo markaas oo uu Messi aan caadi ahayn u dabaaldegay markuu ka hor ugu shubay buna kan labaad ka dhali isagoo 4 difaac oo Real Madrid wareystay war adiga yaaba war aniga waay adin saatahay waa fiicanahay ad xaalka ka war ana okay waa adin Madrid ma ahna waan ahay kadib kasbaa loo tagay gees baa laga dhigay goolka Lionel Messi ayaana xilli ciyaareedkaas 11 gool dhaliyay 11 ciyaarood uu Champions League ciyaaray oo habeenka 11 gool ku gaarayo kadib kulanka ka Bernabeu ka dhacay Lionel Messi iyo Barca sanadkaas waxa ay noqdeen inay ku wada guuleystaan ciyaaraha Champions League markii ay Manchester United ka qaadeen Messi ayaana ku muteystay sanadka ka in la siiyo Ballon d'Or-kiisii saddexaad oo xiriir ah waa Ballon d'Or-kiisii saddexaad xiriir ku guuleystay oo adduunka xilligu waalay ahayd isaga ayaana sanadkii ku xigay la siiyay kii afraad oo Ballon 4 jeer buu Ballon d'Or ku qaatay oo ninkan nin caadi ahayn maan wahayn waxaana bandhigiisii Barcelona habeenka Madrid lagu siiyay ninka ka sanadka lagu siiyay jaayisada tahay Ballon d'Or marka sanadkaas uu Messi sheegayo inuu yahay xilli kulankiisii ugu fiicnaa abid uu ciyaaray waxa uu ku muteystay in lagu siiyo sanadkaas Ballon d'Or oo Champions League ku guuleysteen waxaana uu xilliga uu ku guuleystay Ballon d'Or-kii saddexaad sanadkii ku xigeen la shak isaga la siiyay Ballon d'Or-kii afraad oo waba ninka taariikhda ka yaabsada kubadda cagta ee 4 sano xiriir ku guuleystay Champions League ilaa uu mar dambe uu 5 jeer gaaray Ronaldo ayaana booska labaad soo galay habeenka ka codeynta taa Messi saaxiibkii Xavi waana kaalinta saddexaad soo galayo Barca ayaana sanadkaas Andres Iniesta wuxuu galay booska afraad waxaanu sanadkaas Messi ugu mahadceliyay abaalmarinada ku guuleystay saaxiibadiisa kooxda Barca uu sheegay inay garab ku siiyeen iyagu laantood waxba ma ahan lahayn buu leeyahay waryahay gaabkan adduunku waa soo waalay ka war marka liigu wuxuu ku leeyahay kulanka wuxuu ahaa kii ugu fiicnaa ee nolosheeda ciyaaruhu ku leeyahay waliba sanadkaas wuxuu ku muteystay Ballon d'Or-kii saddexaad ilaa kii afraad la siiyo 5 ugu dambeyn gaaray bal Messi fikirkiisa waa kaas wuxuu ku leeyahay kulankii ugu fiicnaa ee aan ciyaaro wuxuu waxa ku leeyahay kii Madrid aan gurigooda 2-0 ugu soo dhufanay Champions League ee asagu uu dhaliyay buu ku tilmaamay kulankiisa ugu fiicnaa waradoo Barcelona keebaad isleedahay kulankii ugu fiicnaa ee Barcelona aad aragto Messi kulankii ugu fiicnaa Messi bal aduba u door makii Arsenal offerta ka dhalinay makii Manchester ee uu dadka ka horkacay makii Champions League goolashu ka dhalinay makii uu Wembley ku garaacay war adu noo door markuu Messi doortay gool kulankiisa ugu fiicnaa inuu yahay kii Madrid uu garaacay classicada ka ee Champions League semifinalkiisii 2011 bal aduna noo soo qaad kulankii ugu fiicnaad isleedahay ee uu ciyaaray ninka gaaban ee Lionel Messi oo aad ka yaabtay oo aad tiri war cunugan intee la geynaya asagu bariyaha mucjisad uu ahaa ninkan gaaban ee Messi waqtiyada 2010 iyo 11 iyo 12 faras uu ahaa war waa xillidu 9 gool san dhalay weeyaan macquul maahan 9 gool sar la dhaliyay waa 9 ya iska jir hal sano buu hadda ka hor 9 gool dhaliyay ninka ka dhig gaaban Messi qof ma samayn karo cunug dambe ma dhalan karo isagu xataa ma samayn karo Leo xitaa wuxuu Messi sameeyay xitaa Leo baan dib u samayn karin qofna ma samayn karo in sanad 12 bilood 9 gool lagu dhaliyaa waa records weyn ugu xitaa waa ninka ugu horeeyay taariikhda La Liga 50 gool ku qaaday horyaalka hal xilli ciyaareed waa nin caadi ahayd marka habeenkaas uu Messi ka sheekeynayo Madrid waxa uu ciyaaraya Casillas Bebo habeenkaas roose qaatay Ramos Ronaldo Diarra Marcelo Xavi Alonso Albiol Di Maria Ozil waxaan habeenka ka u fadhiyay Adrian iyo Kaká iyo Benzema iyo Garnacho iyo Gray Higuain iyo Adebayor Mourinho kuwa ka tababaro waxa halka kuwa kana ay wateen kooxda kubadda cagta Barcelona Valdés baa u ciyaaray habeenka Alves iyo Piqué iyo Puyol iyo Xavi Hernandez iyo
Villa iyo Messi iyo Mascherano iyo Keita iyo Busquets iyo Pedro iyo waxaana keedka ugu jiray rag ay kamid ahaayeen gool haya Pinto iyo Milito iyo Afalay iyo Fontas iyo Sergio Roberto oo ilmo yar ahaa iyo Thiago Alcantara Guardiola tababar u ahaa marka Lionel Messi ayaa ka sheekeeyay in uu waxa kulankiisii ugu khatarta badnaa noloshiisa ciyaaro classicadii Madrid uu xaaqay ee uu gurigooda ugu tagay 2 gool ku dhaliyay mid uu dardaray oo dhan wada tiriyo lambaradu ka wada qortay oo uu la sheekaystay yacni wareysi ka qaadayo yacni wada marayo wareysi ka qaadku waa inuu qofku la maraa markuu qofku gambiyo waa qofku waa la wareystay dhulka la dhigay arhaya la yiraahdo dhulka fiiriya la waa iska fariistay markii dambana asagu waa nin caadi aan hayn mucjisa ah Lionel Messi ya maanta inta ku dhaafno mid kamid ah kulmadii ugu xasuusta badnaa taariikhda Champions League buu ahaa habeen wuxuu ahaa qof kasto Madrid iyo Barcelona wadnuhu dhagleynayay habeen wuxuu ahaa adduunka dhan soo jeeday Madrid baana la saaray meelo Bernabeu lagu garaacay xilligaas oo Barca Champions League qaaday Messi uu Ballon d'Or ka 3 qaaday